وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحير إن شاء الله طول قالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ولا ليال إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كداعي الشو. ما أنت وحندين هنا وح عجيبة يقصات يأد مهم وحقيقة إن بدنا مدة إسلامكم ومسلمين الصوماليات غير قلين دونتا كفر حين دونتا بليز قف كستو ولا صوت قلي واحد سميسا شير له وقصة أدي عجيب قفكي أي كل عضي حالة دي سنة وما أنت كجيرو أو يسقي اللايف يحي تلافنك أي لايف كتهاي ولا شين قالي هذا مكسو قشو إنترنتك أما فيسبوكك walaasheen waxay ahayd muddo 2 sano ka badan Christian kadibna 2 toddobaad ka hor ayay ka soo noqotay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku soo celiyay islaamnimadii iyo diinta islaamka. fadlan qof kasta oo soo galay waxaan ka codsanayaa maanta barnaamijka Daaci Show waxa ka jiro xaflad aad iyo aad muhiim u ah. share dhaha walaalaha, share gareeya meesha shareka ku dhufta dadka kala gaarsiiya. haddeer macnaha waxaan ka hadlayo waa adigoo ku jiro share leh si aad qisada u dhageysato. walaasheen ayaan insha Allah taala mar dhow noo fasaxayaa iyada nala hadli doonta. waa walaasheen oo ka toobad keentay Kirishtaannimo muddo 2 sano ah. sababtii ku kaliftay wixii ay ahayd muxuu ahaay iyo inta ay ku jirtay wixii aragtay iyo qisada cajiibka ah ee ay uga soo toobad keentay ayada noo faahfaahin doonto. walaasheen soo dhow. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi mana maqashaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وانكم مقلا سيفي أنا ينكم مقلا. ما شاء الله الله كبرك ما شاء الله. waxaan ku weydiinayaa markaaga hore in dadku ay maqlaan ayaan weydiinayaa. walaal soo qora insha Allah taala ma la maqlaa codka gabadha walaasheena. walaalaha soo qora insha Allah haddii aan la maqlin codka waan bedelaynaa. ma la maqlaa like iyo love wax yar dib u dhiga waxaad samaysaan ii soo qora ma la maqlaa walaasheen codkeeda. ها baa la soo qoray. ku soco walaal. marka hore waxaad ka bilowdaa insha Allah taala magacaaga iyo meesha aad joogto. walaal aniga horta dhamaan waan salaamayaa ummadda muslimiinta oo leefka ku jirta iyo adiga oo dadaalay oo leefka soo galiyay Sheekh Hussein waan kaaga mahadcelinayaa. Ilaahay baa mahadle jazakallahu khayran. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكاقان magacaygu waxa waaye waxaan ku soo gali jiray Facebook magac la yiraahdo qaali qurux aadan, laakiin magacayga runta aniga waa hodan suweer aadan. waxaan ku noolahay wadanka Sweden. ما شاء الله. ay taboori si fiican baa lagu maqlaa. waa gartay. waxaan ahaa gabar Soomaaliyeed oo islaam ah oo islaamnimo ku dhalatay oo waalidiinteed islaam yihiin diinta islaamka lagu soo koriyay. inkastoo aanan aqoon u lahayn diinta islaamka oo aanan baranin ilmi diinta islaamka aanan baran, laakiin waxaan ahaa qof ku dhashay jaahil baa ka ahaaday diinta islaamka ku dhashay oo dadkeedu yihiin oo dad culumaha ka soo jeeda. Allahu akbar. ما شاء الله. inta aadan iman Sweden muxuu ahaay oo aadan qaxootiga ama ku iman noloshaadii hore qof aqoon diinta islaamka u lamaadan ahayn laakiin ahlu culimo iyo dad wanaagsan baad ka soo jeeday. maanan ahayn laakiin dad islaamahan ka soo jeedaa siiba aniga dad culumahan ka soo jeedaa laakiin anigu maanan baran diinta islaamka. waxaa dhacday in aan qaxooti ahaan ku imid wadamadan muddo aan fogeyn adigu dhowaan ah. cagta uma dhigin markaan wadankaan imaaday. shaydaanku qofku duufsanayo cidna lama tashanayo. waxaa waaye waxaan ilaahay uma nasbeyn karo. waxaan dhihi karaa shaydaan ayaa i duufsaday. maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan la kulmay qof Kiristaan ah oo gabar oo Soomaaliyeed. waxaan ka sheekaysanay waxay iiga sheekaysay diinteeda waxyaalaan ka wada hadalnay. waxay isisay kitaab buug ay ku qoran tahay
lahay buugga quduuska ah oo ah Bible oo af Soomaali ah si fiican waxaa dhacday si hore waan qaaday buuggii meel baan geeyay xaafadaydan geeyay waan fiirin jiray dan badan uma aanan geli jirin laakiin shaydaan ayaa i watay maalin maalmaha ka mid ah waan soo qaaday waan kala furay akhris baan ku bilaabay waxaan ku jiray meel kaam ah weliba meel kaam ah ayaan ku jiray oo qof camal kala qabanaya maanan ahayn qof qaxootiya ayaan ahaa waxaan sameeyey in aan waqti geliyo waqti siiyo oo aan mar walba aqriyo baaro runtii aad baan uga argagixi jiray mararka qaarkood meelo badan markaan ka aqrinayo oo ilaahay u sharig yeelayo hase ahaatee markii dambeeto intii badneed sidaan u cabsanayay markii dambeeto waa ii fiicnaaday oo wuxuu ila noqday wax aad u fiican shaydaanka ayaa ii nuuriyey waxaan dhihi karaa imaamkaygii baa daciifay islaamnimadaydii baa daciiftay qalbigaygii baa madoobaaday waxyaalihii qaar oon ilaahay xaggiisa ahaa oo awal aan dhibsan jiray amaba rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam aan diidi jiray oo jirku iga guban jiray oo arkay aan ku raaxaysanayo oo aan u bogayo oon akrinayo oon runtii anoo arkaya in oo dhibaatooyin badan ay leedahay oo dembi badan uu kaa soo gaarayo inaad nebiyada wax ka sheegtid maasha allah inaad rasuulka u gashid oo barbaariyo aan maqalkeeda iga buuxo ayaan haddana u bareeray oo shaydaan ii maceeyey inaan wax walba oo ku qornaa aan ku raaxaysto oon dhigo raaxeeyo oon xafidoon barto markii dambena qalbigayga ayaa siiyo aad baan mugdi ii galo imaamkaygiiba aad u daciifay subxaan allah baybalka maxaa kuu raacsanaa oo kaamkaas markaad ku jirtay baybalka maxaa kuu raacsanaa oo ay dad ku yimaado ama kaniisada lagu geeyo miyaa jiray tashkiilin intaas ka badan miyaa jirtay tashkiilin aad u badan baa jirtay waxaa jiray dad ila kulmi jiray tigid baa la isoo diri jiray dad Soomaaliyeed oo dad Swedish ku xiran waxa meel baa la isugu tagi jiray waxaan arki jiray markii hore wax oo la yaab oo aan baqayay ahayd inaan diintayda ka tago laakiin markaan arkay Soomaali aad u badan dhammaan kalena mar adigu familada Soomaali adigu ilaa 20 meeyo markaas adigu way kula badan tahay 20 meeyo adigu dad gaaraya oo meelal ay ku shirshiraan ay isugu imaadaan oo caruurahooda wata anigu hadda ma doonayo magacyadooda inaan meeshaan ka sheego laakiin dadkaas ayaan la kulmi jiray meeshaas casharrada lagu qaban jiray meeshaas wax lagu aqrin jiray halkaas islaamka mar walba wax looga sheegi jiray oo la dhigi jiray waa diin daciifa waa diin aan jirin waa wax la soo aliftay halkaas ilaahay loogu sheegi jiray waxyaalahaas marka shaydaankii iyo wixii uu ii badiyay oo aad maskaxdayda waxaan dhihi karaa qalbigayga u madoobay subxaan allah markii aad marka isla qaadeen hawshii oo aad dhaqaaqdeen oo aad kirishtaaniyadii ku qanacday qoysaskaana kusii kaalmeeyeen ma ka mid ahayd adigu dadkii sanadkii hore iyo kii hadda ahaaba soo duubay fiidiyowyada oo ku jira cajaladaha maya ka mid maanan ahayn laakiin waan ku sugnaa goobta lagu duubayay anigu kumaanan jirin laakiin qalbigayga way ku jirta inaan galo haddana maanan gelin waayo ma dhihi karo qof iimaan laho markaasayto wax ka celinayaan baan ahaa ma dhihi karo laakiin way sabicin inay dhacdo inaan ka sii qaato laakiin waan ku sugnaa goobihii lagu sameynayay ka qisooyinka ahaan dadka inta badan kirishtaanka noqdo Soomaalida ah waxbay iska soo duubeen waxbay isku celceliyeen in badan baa laga arkay gabdhiyo wiilalba in badan baa laga yaqaanaa adigu maxaad caan ku ahayd oo internetka kugu jiro oo dadku kugu garan karaan subhanallah internetka waxa igu jiray horta muddada ka sii dambaysa waa sidaan ku sheegay ana qof qalbigiisa sii madoobaanayo sii dhimbanayo oo xisho tagaayo waxaa dhici jirtay Facebook aan isticmaalay awal sawirkayga maana soo dhigi jirin sawirro aan ka matalayo ilaahay oo u shirgeelayo aan ilaahay ka dhigayo jiifka sameeyo la dhahayo waa ilaahay baan soo dhigi jiray waxaan soo dhigi jiray fiidiyowyadooda aan sheer gareeyo oo sii wadoon dadka ha gaarta dhaho markii dambe laakiin waxaan gaaray inaan soo dhigo sawirkayga oo weliba aniga oo crosskii qaba ama mucatab waxa u taqaaniin anigoo qaba isku tilaabti inaan soo dhigo baan gaaray heer ah
oo xishoodkii oo dhan baa iga tegay imaamkayga aad u daciifay misaan mar dhow aad ii sheegtay maxaa jirtay mar magacaaga iyo dadka iyo siday ku gaartay macnaha dadkaagii aad iiga sheekaysay maxay ahayd arrintaa iyada oo dhacday waxaa dhacday markii aan bartay oo horta oo qalbigaygu oo aqbalay oo aan ku iri waan qatay ciisana waxaan u aaminay inuu ilaahay yahay oo halkaas biyo la igu geliyo la igu baatiisay oo ay soomaali badan ku sugnayd waxaa jirtay gabar aan meesha isku baranay oo deganayd magaalo ka mid ah Sweden gabadhii markaan meesha isku baranay magaceeda waxaa la dhihi jiray Qadra Cawil gabadhaas ayaan meesha isku baranay waxay igu tiri maadaama akaan ku sugan tahay dad muslimiin oo Soomaali oo badan aad ku dhex jirtid maad ii timaadid aniga oo wiiga bisha kaamka aad ku jirtid bisha soonka Ramadaan ay jirto inta inoo aan wax isla cunno waayo sanadkii hore waan soomay anigoo qalbiga waxaan ka aaminsan ayaan soomay cabsi aan dadka ka cabsanay bulshada oo aad bay wax oo aad u culus bay ilaahay in aan afka ka qirto waayo wuxuu qarinayo qalbigan ku haystay laakiin wala soomay ummadda muslimiinta sanadkii hore laakiin sanadkii dambe soonkii ahaaba tiri imo waxaan haystaa 2 ilmood oo keligeeda ahay maadaama dadkii ay muslimiin aad ku dhaxnooshay soomayaan waa inaad halkan imaataa oo ambada ka islaamna sidii ayaan gabadhii ugu tagay magaceeda waxaa la dhahaa Qadra Cawil gabadha waan sheekaysanay meeshaas aan isku baranay marka xagga tagay tikidka waxa ay soo diray Swedish ah oo dadkan Soomaalida caawiya oo يعني Soomaalida Christian-ka aaminsan beeraha kulamada dadka xafladaha dhiga oo dadka isku keena ah missionary-ga يعني missionary buu ahaa wuxuu dadku ku kaalmeyn jiray Christian-ka ma aha nin Soomaalida oo dhan caawiyo musliminka galaba maya waa nin Soomaalida Christian-ka ah lagu soo xiro inta Sweden joogta si fiican gabadhii waad u timid gurigeeda aad timid arrintii dagaal baa idin ka dhexdhacay waana arrinta internet-ka la soo galiyay si fiican ku soco gabadhaas Qadra waxaa dhacday Qadra anoo gurigeeda ku sugan oo sidii ula jooga maalin maalmaha kamid ah ayadii gabar kale oo Shaaniya la dhaho oo Ingiriiska degan Shaaniya gaabo oo Facebook ugu qoran tahay gabadhii ayada in xoogaa wax dhaxmaray isku dhaceen igu fadhaso inaad ka aamustaa oo dhawjigaaga leedahay wajigaaga leeyahay telefonkeyga iga qasatay Qadra ayadoo waxba ii muujin markaan telefonkii weydiiyay adigu ii gacan qaaday gurigeedan ku sugnaa way daqartay booliis baa na kala qoray ninkii baa noo yimid Swedish-ka ahaa sidii bay wax naloo kala qoray waxaa dhacday gabadhaas markaas inay ifashishay oo telefonkeyga maadaama ay gacanta ku dhigtay ay sawiradaydii oo dhan dhigtay oo faamiligeyga ay sidaas ku ogaadeen adduunka dhan sidaas midiyaa la ii dhigay oo sawirkeyga anoo karoos qabo xafladii hore markaan isugu wadanay mid la soo dhigay subhanallah waa midaas marka midda ay Mulan Walter gabadha ka sheekeynaysa adiga ah gabadha la baxday waa midda ay gabadha kale oo muslim baan ahay waligeena Christian ma noqon ay ayaduna internet-ka ku soo dhigtay gabadhaas aad tahay gabadhaas aad caan ku tahay Soomaa aniga gabadhaas aan ahay magacaygu waa hodan gabadha kale Mulan la dhahay ay soo dhigtay sheekeynaysa gabadha Qadrana leedahay gabar islaam ah ay keentay islaam iyo keenin aniga Qadra kaniisada isku jirnay laakiin qofku waa islaam qofku uu toobad keeni karaa toobadu way furanta aniga Qadra ma ogi inay toobad keentay oo ilaahay amba waa ka waan toobad keenay oo ilaahay khayrka tusiyay oo naxariista ilaahay ee heshay ma sheegi kara laakiin Qadra waxay ahayd qofkii hore si ii sheegtay dhowr sano waxaan ahaabay igu tiri artiste kadibna waxaan noqday Christian markaas Christian-ka waxay haysatay muddo dhowr sano ah waayahay ayada iyo xaaladeed waan ka gudbaynaa adigu marka dadka hadda way ku fahmeen inaad tahay qoftii noocaas ahayd sawiradeedana halkaas lagu hayay saas caanka ku ah waan fahmnay waxaan rabnaa inaad noo guda gasho muddo 2 sano ahayd 2daas sano oo soo martay oo xaaladaada ah wixii kuula cajaa'ib badnaa iyo sidii markaad ku jirtay aad ahayd oo dareemaysay subhanallah sheeko horta maalinka ka dambaysa sidaan ku sheegay waxaan ahaa qof iimaankeedu uu daciifayo markii dambena iimaan la'aan baa igu dhacday qalbigayga aad buu u madoobaaday waayo ilaahay baan u shariik yeelay nabi baan waxaan ka aaminay inuu ilaahay yahay waxaan dhihi karaa ilaahay uma nasbeyn karo xumaantaas laakiin ibliis baa waxaan ku qabsaday waxaa dhacaysay maalinka dambaysa inaan walbahaar qaadayay oo qalbigayga igu fur
dhan aan ka go'ay oo qof kastoo aan aqaano amaba qof kastoo ay garanaya aan ka cararayay in aan xishoodkii ka tegay oo aan gaaray inaan u jirto sida dhaqamo aanan dhaqan u lahayn ee dhaqamo dadka la bisanayaan maadaama aan ka xishoonayay amaba aan ka qajilayay maadaama ayagiioo madax qaawan kaniisadii aan ku xiranahay oo imaanayaan oo madaxyada dadka u furan yahay madax qaawan ama Soomaali ha ahaato ama Eritrean ha ahaato ama Swedish ha ahaato dadkii baan saa isaga midiyay iyadoo un baan noqday noocoodii baan noqday qalbigeydina wuu isbedelay maalin ka dambaysa qurbo iyo walwal baa ii soo kordhayay dhibaatooyin fara badan baa ila kordhay oo wadanka igala kordhay oo igu soo kordhay oo igu soo biiray ama xilli ka dambaysa dhahayaa diintan sax tahay adigu wax lacagana maan qaadan shilin lacagana iguma sheegtaan ma sheegin meelaha la isugu imaanayo kale markay tigid ii soo dirayaan ay dhahayaan meeshaas inuu tigidka ii soo diraan xoolay inuu iga soo galay amaba baska kaarka kaniisada aan ku tagaayo ma ahana xoolo kaleeto aniga shaytaan unbaa idinsadaan dhihi karaa ma xoolo kale leeyihiin ma cunin mana dhimin mana ku korin markaygii horena ma arkin xilliga ka dambaysay waxaan dareemayay inaan qalbigeyga uu gubanayo inaan dhibaato la kulmayo hadda ka hor marbaa waxaa dhacday habeen galab baan seexday wax yaraan hurdo intaan sariirtayda tagaan hurday wax yar markaan hurday baan indhahaas ku qabtay hurdaan galay waxaan arkay anoo lay cadaabayo waxaan leeyahay meelba waxaa la yiri meeshaas bal fiir meel mugdiya cagtaan la aadaan leeyahay anigoo cabsanaya wayba ii go'day meeshii waxaan leeyahay waa ila tagay wixii waxay isku bedeleen holac inaan dhex galay oo jirkeyga uu daadanayo waan soo gooday riyo inay tahaan arkay ma quusanin qalbigayga ilaahay kuma soo dhicin wax walba waqti bay leeyihiin waan iska joogay waxaa dhacday muddo hadda laba wiig adigu wiig iyo bar aan dhihi karo intaan halkaas gaarin adoo raalli ah insha allah halkaas noogu haki ikhwaani fillah waxaad ku jirtaan live oo ah daaci show waxaa marti noogu ah barnaamijka walaasheen oo kusoo gasho facebooka qaali aadan hodan aadan laasinaankeedu uu yahay wadanka Sweden joogto ahayd Christian muddo ka badan 2 sano sida ay ku qaadatay Christianka iyo ayadoo ka soo noqotay 2 week ka hor qisooyinka qabsaday cajaa'ibka ahaa ayay noo wadaa Allah idin barakeeyo share ku dhufo barnaamijka si dadka kale uu sii gaaro asxaabtaada meesha hoose ama laftiga ama midigtaada ah oo share ay ku qoran tahay ku dhufo si dad kale walaalaha ay markiiba u arkaan waxaan kaloo idinku baraarujinaynaa barnaamijka daaci show aad khayrkii wanaagga kaga barateen in badan oo kamid ah akhyaarta iyo dadka walaalaha ah like uma saarna saas daraadeed like saara barnaamijka laftirkiisa si barnaamijyadiisa khayrka badan aad idinna nooga kaalmaysaan idinkana uga warqabtaan sida ugu dhaqsiyaha badan like saara barnaamijkan hadda socdana share dhaha si walaalo badan u gaaro oo walaasheen qisadan cajaa'ibka ay soo wado aad uga faa'iideysataan qadro walaal waxaad ku noqotaa hodan adoo raalli ah waalidka markay maqleen labadii waalidba reaction baa kaaga yimid macnaha waxay sameeyeen labadoodiba sibay kuula hadleen bulshada Soomaaliyeed sibay kuula hadashay bal ka waran dadka Soomaaliyeed iyo waalidkii maxaa kaaga yimid runtii waxaan dhihi karaa aniga xagga waalidkayga aad baan u nasiib badanahay markaan arko dadka Kiristaanka oo kale oo Soomaaliyeed aan la kulmo runtii waxay ka hadli jireen markasta waalidkood inay dayriyeen ama ay kala fogaadeen laakiin anigu hooyaday way geeriyootay Allah u naxariisto qabrigeeda u nuuriyo aabahay ayaa maqlay uu weydiiyey waan inkiray markii hore markii dambena waan sheegay wuxuuna igu yiri aabahay waxaad ku dhalatay diin islaam waxaan ka soo jeednaa islaam waa diinta kaliya oo saxda ah waxaa tahay qof weyn waxaa kugu filan aqligaaga haddii shaydaan ku duubsaday oo maanta oo ku tusay wax khuraafaada inaad aaminto anigu waan ku duceynayaa ducadeydana ma qasaari doonto salaatuleyl ayaana u taaganaa saan shalaf ku jeclaabaan maanta ku jeclahay ilmahaygiibaad shala ahayd maantana waa tahay laakiin anigu waxaa ii muuqda in shaydaan ku duubsaday markastana waan kuusoo duceynayaa dhammaan ehelkayga oo dhanna way iisoo duceynayeen intaas qof kastoo ehelkayga wuu iisoo duceynaya oo maqla qof kastoo muslimana markuu ila kulmo oo i wacdiyo oo wax ii sheego qof waxaa meel u cadday meel ka madowgaan ahay shaydaan baa igutay waxaan dhihi jiray anoo garanaya amaba arkaya xilli kasteeto oo baybalkan ama
furo amaba ayaga aan su'aalo ka weydiiyo inaan wax iskhilaafay ku arko oo aan dhaho waxaad ii sheegteen ciise inuu yahay ilaahay haddana waxaad ii sheegaysaan ciise inuu yahay wiilka ilaahay uu fadhiyo midigta ilaahay seebaan ku qaataa waxyaalahan aniga aan beebalka ku arkay madaxayga way ka weyn waana ku qancilaa xilli kastana aniga walbahaar baa igu furan maxay dhibaatadan i haysato i saamaysay waxay iigu jawaabi jireen wax su'aala iima haynin wax jawaaba iima haynin waxay igu qancin jireen ciise wuu dhiftooday isagoo annaga noo dhintay oo annaga dhiiggiisa nalagu daahiriyey marka dhibaatadu asaga dhiftooday ayaan dhiftoonaynaa waa inaan ku samaystaa ma ahan taasna jawaab iima noqon jirin runtii waxaan ahaa qof isaga adkaysanaya maadaama uu dadkii ka fogaaday maadaama uu meel xun galay haddana waalidiintayda kama haysanin fogeyn laakiin ummadii soomaaliyeed iyo dadkii aan la noolaa maadaama dadkii aan ku dhex jiray islaamka ahanoon ka dhex bixinin oo mar walba qof kaste oo islaam oo shalay i yaqaanay amaba i jeclaayo qof wanaagsan baad ahayd maanta laakiin meel xun baad ka baxday wax kaamaana filaynin toobadu way furanta soo noqo qofka idhaha dadka qofkaas ayaan ugu nimcaa haddana anoo garanaya inaan qalad ku taaganahay kama laaban karinin oo waxaan islaa haddaad ka laabatid xala aaminayaaba inaysan been ahayn aysan qalbi kaa ahayn marka laakiin waan garanaya inaan waxun ku dhex jiray barnaamijyada aan soo duubno oo daacishow aan kaga soo hadalno kristanka muxuu ahaaye bibaleka isburinayo waxyaabahaas dhammaan ma arki jirta jazakallahu khayran sheekow aniga in mar kasta muddo badan baa wax baarayay daacishow waan arki jiray adigoo ayaga ka hadlaya maadaama aan bibalkii haysto waxaad ka hadlaysay buugga bibalka waxyaalo badan aayado badanaad ka hadli jirtay markii aan baaro sida adiga aad u sheegaysid aan aayad kasta oo aad sheegaysid aan raadiyo meeshaas ku taalla dib u baaro waan arki jiray xaqiiqadeedaan arki jiray waayo kulli bibalka waxaa loogu gafayaa nebiyadii oo dhan baa loogu gafayaa ilaahay baa looga been sheegayaa lagu caasinayaa intaba waan arki jiray waxaan dhihi karaa intaba waan arki jiray haddana waan ku adkaysanayo shaydaan unbaaray mar walbo aan laabatid wuxuu dhihi jiray joog oo uu cabsi i gelin jiray inaanan dadkii ku noqon karin inaan meel xun tegay mar walba dib baan u baqi jiro dib baan u laaban jira anoo arkaya inaan xumaan ku dhex jiro subxaan allah walaalayaal inta gadaal ka soo gashay mar kale waa walaasheen hodan aadan oo ku nool waddanka Sweden noqotay Christian muddo 2 sano ka badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa u gargaaray 2 week ka hor ayay dib u soo muslimtay qisooyin cajaa'ib ahayna aragtay qisooyinkeedii ayaan halkan ka galaynaa biidnillaahi albaari waxaad samaysaan share dhaha oo ku dhufta qaybta hoose share si walaalo kale ay u arkaan oo degdeg ah sidoo kale page-ka hadduusan ku shaarnayn like fadlan like saar oo barnaamijyadan soo gelin oo dhan sii share gare walaal waxaad ku noqotaa 2 week oo ugu dambeeyay aad soo islaami rabtay wixii ka horeeyay wixii dhacay waxaa dhacday xilli kasta waxaan aadi jiray kiniisada aadi jiray kaar ayaan haystay way iga fogeen laakiin waan tegi jiray khamiista waxaan tegi jiray meel oo aan ku kulano dad Soomaali ah iyo dad Swedish oo ayadana bibalka lagu falanqeynayo oo su'aalo la isku weydiinayo mar kasta su'aal weydiiyana sida aan ku sheegay su'aasha igama jawaabi jirin laakiin mar walba waan weydiin jiray kamaan daan jirin oo waxay dhihi jireen waa inaad rumaysad yeelataa oo ilaahay aad rumaysaa markaasaan dhihi jiray ilaahay haddii naga xuma inaan rumeeyo oo waanba soo galay hadda waanba qaatay waxaad leedihiin rumee laakiin ani maba arkaba meeshu nabi ciise ilaahay ku yahay maba u jeedaan dhihi jiray waayo mar waxaad leedihiin waa kana kitaabka way ku qoran tahay inuu xataa waxaa ku qoran uusan meelna uusan ku sheeganin asagu ilaahnimo in nebiyo badan loogu gafaayo in uu wiilkii ilaahay yahay oo midigta ilaahay uu fadhiyo inuu ilaahay asagu yahay marka waxaan dhihi jiray yaan caabudaa kan kale waxa ii sheegtaan markii oo koonkan intuusan ciise imaanin yaa maamulay aniga su-aashaas mar walba anaa Facebook layga weydiin jiray waxaa laygu dhihi jiray qaaliyeeya baayo maadaama gabar Soomaaliyeed tahay oo Kristaan noqotay dhalinyaro badan baa soo weydiin jirtay bal nooga jawaab oo noo sheeg ciise intuusan noqonin intuusan soo degin ama koonkan la abuurin
uusan maryan ka dhalan yaa dunida maamulayay وآدم سميه ابن آدم كسميه سماضي يقولك أرلق يا مامولاي ما أنهي جوابتي مركا عيال أولا لا ترى جواب كمية بجري مركا وحان سمينتي بأنا مبراكو قد تخص أستؤس عشا كميتي هاي جواب مانحي مركا وحان عضي أحدي بان وحان كايمت كنيسة هبينكي بان سيحلي سبحان الله هبينكي مركا سيحلي أنا والمرسان بان سيحلي ما نقرانا يا وحيدا ما أقول مكان حلي كستوي هاي markaan jiiftay waxaan soo booday anigoo la cadaabay haddana waan riyaan dhahay baybalkii af soomaaliya aan haystay waan soo qabsaday waan aqriyay seexday mar labaadkii sidii oo kaleetaan soo booday haddana anigoo la cadaabay waan soo booday mise waa riyo guriga dhexdiisa markii waan shiday waan oomay runtii carabka wuxuu igu dhagay meel fog qof waxaan noqday ruux sig asaga xataa markaan istaagay laba garan mamnuun baan ahaa cabsi aad u weyn baa gashay markii labaad biyaan cabay markaan isnay waan oon bacday haddana waan seexday mar saddexaadkii waxaa laygu yiri ma taqaanaa suurat iklaas marka intaas marna ilaahay maskaxdayda kuma socday wareegtaayo wariga bixiyo waree cadaabina unbaa ku hayay markaas waxaan bilaabay markii saddexaad inaan dhaho ilaahayo afi ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah muxammadan rasuul inaan ashhaato oo markaas uu igu soo dhaco inaan ilaahay xasuusto mar saddexaadkii intii ka horreysay marna ilaahay qalbigayga kuma soo dhicin markaan ashhaataa laygu yiri mataqaan suurad mataqaan al-iklaas wallaan aqriyay markaasaa laygu yiri maxaad ilaahay ugu shariig yeeshay waan soo booday waa riyo sariirtii aniga wada biyo dharkaan qabay biyaa ka da'ayo waxaas waa midib waan oomalahay dhuntu way qallalan tahay runtii waxaan isiri sidan waxaan ku dhiman oo naftiisa kaaga dhicay waana shahaatay haddana waxaan isiri amaad ku dhimataa sidaan bal wax muslino shahaado ku qabta qol iga horeeya qayb iga horeysa gabdho Soomaali ah laba gabdhood baa ka tegnaa labadii gabdhood baan albaabkii u garaacay yaa waay waa hodan weyn xeen oo waxay dhaheen hodan maxay albaabkii lacaa u soo tubtay waan u garaacay way iga fureen maxaa kugu dhacay mase miyaa ku qooyay maxaa kugu dhacay biyo madaxa weliba hadda qabowga lagu jiro ilaa madaxa ilaa lugaha biyo iga da'ay maxaa kugu dhacday yaa ku dilay maxaa kugu dhacay shahaadada ii qabtaan dhahay shahaadada ii qabta ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah gabdhii shahaadada ii qabteen waxaan dhahay naftu ma igu jirtaa waan istaataabtay haa waad nooshahay bay dhaheen hodan ma soo noqotay maxaad aragtay qaabkan wuxuu arkay baan u sheegay subaxii waan qubaystay markiiba waan daahirsaday salaadii ilaahay baan u istaagay waan ducaystay ilaahay hortiisaan istaagay ilaahay waxaan ka baryay inuu ii dambi dhaafo maadaama aan arkay inaan noolahay oo sarriya ahaynba naftu inay igu jirtoona dhiman waxaan go'aansaday inaan ilaahay u toobad keeno oo waxaanba ogaadayba in ilaahay i jecel yahayba haddiiba aan noolahay oona ku dhiman qaatimo xumadan waxaan u sheegayaa qof kasta oo walaala oo muslim ah amaba Soomaali haddaan nahay dadku badanaa diinta islaamka ma wada yaqaanaan siiba gabdhaha lama baro waxaan uga digayaa u sheegayaa qof kasta islaam inuu iska ilaaliyo kitaabada lala wareegayo buugaagta lala wareegayo oo la leeyahay aqriso weliba kitaabkeena qur-aanka kariimka ay ku shabaheen waxa waaye qof kastoo islaam waan uga digayaa kuwa hadda ayaga kamida oo ku jirana waxaan u sheegayaa waan is ognahay aniga idinku waan is ognahay muddo badan baa sheekaysanay qof walba dhibaata haysata qof aan ooyeynin saasaa la isku wada cunaya way is wada dagaalayaan way is wada xaganayaan haddana waxaa la isleeyahay qof walba waxaa haysta dhibaatada haysata waa cidnada iyo dad la-aanta waan is wada ognahay qof kastoo Soomaaliya oo masiisi ah أنا وهالكان مجلس قفيل كمان هاي لكن ولا لياله وأسود أبنه إلهي بصلاة إلهي بصلاة طالت وفرنت هاي إلهي وقصور حسين على صلاة إحنا نقول من وحكنا عني شك ما قال لك إلهي أصل نقض على إلهي أصل نقض دين سند ودين الساحة والدين معان وحواي waxaan jirin inaan isku sheegnay oo dadka qaawad ayagu waxba haysan ayagu waxaan dhigi karaa wayba naga rooyin way waxay aaminsan waa waxay ku dhasheen lagu barbaariyay annaga walwalkaan qabno
qabno kala maba qabaan waayo wax beenaan intaan aaminay oo qalbigeena ka dhaadhicinay baan haddana waxaas beenta baan haddana ku qancilaanahay oo huraynay oo gubanayna intaasaa wax walba inay caddaynaysa ha ku dhimanina qaatimo xumo weeye toobaddu way furan tahay ilaahay usoo laabtay weliba shaaniye walaalay waxaan kuu sheegaya inta shaaniye ayaan uga tegayaa walaashay oo maalin kasta dad badan oo muslimiin oo soomaaliyeed oo dhalinyara oo gabdhiyo wiilalba leh maalin kasta u qabata shahaadooyinkooda waxaan leeyahay kadaa dhalinyarta soomaaliyeed oo jaahilka oo dhibaatada iyo dhibkuba intaas haysta kadaa baan leeyahay kadaa dhibaatada kadaa diintan beenta ah kadaa qaatan xumadan adaa ku jira ilaahay ha ku badbaadiya adi ilmahaagaba iyo ninkaagaba min ilaahay ka fogaaday baa tihiin anna sidoo kale aan ilo ahaa laakiin toobadda way furan tahay ilaahay usoo laabta ayaan leeyahay ka daayadada ilmaha masaakiintaa ka dhaafa oo meel kasta jooga oo maalin kasta qaadanaya ka daaya dhibaatada iyo beenta ka daaya waa beentii mugdiga aan shala galay anaa dhibkeeda arkay qof walbana ilaahay toobadiisa way u furan tahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay usoo laabta ayaan dhahayaa sheeko very emotional arona wax kale oon idiin sheego walaalaha gadaal ka soo galay waa walaasheen hodan aadan last namekeeda weeye waxa weeye waxay joogtaa waddanka Sweden waxay ahayd Christian muddo 2 sano ka badan waxay ku caan ahayd gabadhii waxa weeye ay Mona Walter iyo gabadha kalaba ay sawirkeeda wadwadeen isku haysteen gabadhii maaragtay mucatabka ayadoo qabto oo maaragtay la isku fashilo dagaalku ka dhacay gabadha kale gabadha ayada ah islaamka ay ku soo noqotay 2 week ka hor bas mucjiso ay la kulantay mucjisada ay la kulantayna hadeer way ka sheekaysay walaalaha ku jiray way maqlayaan way og yihiin inta Kristanka ah dardaaranka ay siisay waa ku filan wax kale oo inta ka badan oo la yiraahdo ma jiro waxay iskugu imanaysaa alla ka baq waano idil alla subhanahu wa ta'ala uga cabsada umada aad baniga iyo dollarka ka doorateen diintooda oo diintooda ka fasaahadinaysaan aakhiro xusuusta ilaahi subhanahu wa ta'ala maalinta uu halkan adduunka idinka wadayo idinkoo daciif ah oo hal mara xiran xusuusta waxaad kula kulmi lahaydeen diyaarsada shirkiga umada ka daaya waxaad u soo noqotaan ilaahini kali ahaa qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad walaalayaal sheer dhaha page-ka daacishow like saara walaasheen dardaarankeedii way noo dhamaysay wax kale oo u dhiman hadii uu jiro waan fasaxayaa marka hore laakiin waxaan jeclahay 2 iyo 3 hadii questions aad u qabtaan inaan dul maro kadibna insha Allah ta'ala walaasheen aan fasaxo idinkoo raali ah soo qora qofkii rabo in aan question u weydiiyo Allahu akbar Allahu akbar baan wada leenahay ma sha Allah ilaahay soo celiba ma hadle ilaahay subhanahu wa ta'ala waa jecel walaasheen waa sax waayahay wax su'aal hadda ima muuqdaan waxaan jeclahay insha Allah ta'ala walaasheen gabagaba inaan iraahdo ayo walaasheen hodan noo soo gabagabay shaqsan jisada khayran waxaan leeyahay dhamaan ummadda Soomaaliyeed maanan u soo galin leef ama aanan u ogeysiinin in la igu sheego inaan soo noqday laakiin waxaan u soo galay ama aan u ogeysiinaya in walaal kasta oo aan ogey oon aqoon u lahayn dhibaatada ay leedahay oo arko inuu diin macaan haysto walaal kasta islaam ah inay diinta islaamka tahay diinta kaliya oo xaq ah inuu diintiisa su'aala adoo raalli ah walaashay su'aala هذا ولا على هو سؤال صوب بالوضع وحيليهين قصة النوع عليه وقال لي ليهين قال يخلو حيليهين حرور ميلاد هاي مسوا كل جيد ها والله يا هو يا أنا حرور يا والله يا والله يا قصة أيضا قوان كسر على مدة قدام بيسي أو سيد إلهي سبحانه وتعالى وكتصي ضدك جعل يستيسي أو مغلان مركله هذا
dhacday maalin anigoo xadda ka imaaday kaniisadda anoo walwalsan inaan habeenkii seexday walwalkaasna wuxuu ahaa mid xilli kastaba aan qabo markaan seexday waan jiifay waxaa dhacday inaan ku riyooday inaan arkay ana cadaabkii la igelinayo waxaan leeyahay jirkeyga wuu daadanayay waan qayliyay laakiin hal mar iguma soo dhicin in aan ilaahay qalbigayga kuma soo dhicin waxaan soo booday anoo dhuntu iqalalan tahay oo carabka ee angegan yahay biyaan cabay waxaan aqriyay buuggii baybalkoon haystay waan ku laabtay hurdadii sidii oo kale mar labaad noqday marna ilaahay qalbigayga kuma soo dhicin xataa markii labaad subxaan allah mar saddexaadkii sidii oo kaleeto marka awal waxaan dhahayay iga bixiya wariga daaya badbaadiya baan dhahay markii dambe waxaan bilaabay mar saddexaadkii qalbigayga waxaa kusoo dhacday inaan dhaho ilaahayow iga daa ilaahayow kuu toobad keenay laa ilaaha ila allahu muxammadan rasuulullah inaan ashahaadto waan soo booday waxaan dhex jiifo waa riyo aniga biyo sariirtaydii iyo aniga dharkayga korkayga waxaan noqday biyo da-ay waxaad moodaa in biyo laygu shubay waxaan noqday qof malluuna oo ruuxa ka tegay oo markaan istaagay qof jiranaa muddo camal aan ahay waan kacay anigoo gariiraya oo isla naftu miyay kaa dhacda mase way kugu jirtaa naftu intaysa kaa dhicin kulli naftaa kaa socotee shahaadada qof muslim oo kuu qabta ka gaar qolkaygan ka baxay marka xataa markaas dambe maanan shidin albaabka iska furay waan orday guri igu dhegan gabdho degan oo 2 gabdhood oo Soomaali ayaa albaabka u garaacay way iga fureen waxay ugu dhaceen maxaa kugu dhacay yaa ku dilay yaa ku qooyay waxaan dhahay walaalayaal shahaadada ii qabta ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah shahaadadii waan qabsaday gabdhiina shahaadada ii qabteen waxay ugu dhaheen maxaad aragtay wadanee waxaan arkay baan uga sheekeeyay runtii gabdhihii aad bay u mural xumaadeen laakiin markii dambe waxay dhaheen waa nasiib badan tahay wadanee ilaahay baa ku jecel hadiiba aad adoo nool adduunka wax lagugu tusay ilaahay baa ku jecel alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waan qubaystay waan daahirsaday salaad baan u istaagay ilaahay baan baryay riyadii sheekho waa kaa kala dhaafay markaan riyoonayay markii ugu dambeysay oo lay cadaabayay oon ilaahay qalbigayga ku soo dhacay oon ilaahay baryayay waxaa laygu dhahay ma taqaanaa suuratu al-iqlaas qul wallaan orodku aqli qul wallihii markaan akriyay baa laygu yidhi maxaad ilaahay ugu shariig yeeshay allahu akbar waa arrin aad iyo aad mucjiso u ah waad wada maqashaan walaasheen waxay ahayd muddo 2 sano ah Christian magaceedu waa Hodan Aadan waxay ku soo gashaa Facebooka qaali aadan insha Allah taala conversation ku horeeyay dhex maray ayaan comment ahaan ka soo dhigi doonaa halkaas aad ka arki doontaan halkaas aad ilaahay subhanahu wa ta'ala muxuu ahaayay ugu ducayn doontaan ugu baryi doontaan magaceeda caadiga ah iyo qofka ay tahay intaba Facebookan waad ku arkaysaan qof kastana cid iska qarinaysa male ilaahay subhanahu wa ta'ala bay toobad dhab oo la timid ducada u soo haya waa sidaas aad sheegteen u soo duceeya wax alla wixii aad awoodaan oo qalbi adkayn iyo maaragtay ducada u raaciya Facebookeedana u mariya ilaahay idankiis walaasheen aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku barakeeyo in badan oo kale oo walaalo ah oo ku dhageysanayaan maanta rajeenayna ama u gaari doono Facebook maanta videogan in ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo hanuunin doono qof geesiyad ah tahay ilaahay toobad dhab oo la timid barakallahu fiiki wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ ay aad baa u mahadsantihiin walaalayaal si share gareeya videogan page-keena daacishona like saara allah idin barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh